magacaygu waa Zakariya Cusmaan Cabdi halkani waa warbaahinta City qodobada warka caawa idinku hay waxa ka mid noqon doona wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya oo beenisay wararka laga baahiyay talaalka coronavirus gudiga gurmudka abaaraha balad xaaba oo warbixin hordhac ah soo gudbiyay wasaaradda xukuumadda federaalka Soomaaliya oo booqday gogasha taasiida madaxweynihii hore ee dalka galmudug oo shaacisay in ay kaalin weyn ka qaadatay sugidda amniga dalka gaar ahaan galgaduud safiirada wadamada Djibouti iyo Jaamacadda Carabta oo ka wada hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka gudi culimo ah oo bilaabay lacag ururin arashada jawhar oo saddexooleeda laga ciyaaro iyo maamo Soomaaliyeed oo guri loogu dhisay magaalada jawhar ka gadaal baahin aan baahinay intaas waa qaar ka mid ah qodobada warka caawa ugu door karaan qodobadaasi faahfaahsan u diyaar garow warkii ofisan wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa beenisay warar lagu baahiyay talaalka coronavirus warbixinta sayal siman ayaa soo koobaysa wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa beenisay tuhun laga muujiyay badqabka xanuunka coronavirus ee dhawaan dalka la soo gaarsiiyay wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya Fawziya Abuukar Nuur oo shir jaraa'id ku qabatay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ayaa dhanka kale shaacisay in xaaladda cudurka coronavirus ay ka sii darayso loona baahan yahay inay ka digtoonaadaan shacabka Soomaaliyeed wasiiradda ayaa intaasi ku sii dartay inay jiraan dad badan oo u geeriyoonaya cudurkan oo aysan ka warqabin wasaaradda caafimaadka marka in la wada dadaalo oo qof walba qaybtiisa uu qaato aad iyo aad muhiim u tahay waxaan kala sugaynaa talaalo kale inoo qaadeen dawladda China dawladaha Organization of Islamic Conference iyaga naftirkooda inay naga kaalmeyn karaan inay naga kaalmeyn doonaan wadamada Carabta sidoo kale iyo cid allaale cidii noogu soo gurman karta inay talaal nasiis talaalka waxyaalaha ugu xoog badan ee looga hortago cudurrada waa in la wada qaataa waxaan kaloo ka codsanayaa bulshada inteeda kale in ay ka digtoonaato wararka aan salka ku salaysneen cilmiga iyo caqliga ee dadka lagu cabsi gelinayo walaalayaal ma aha wax fiican talaalka annaga istalaalnay si aan u tusno bulshadeena inaan annaga qaadanay inuu aamin yahay inuu waxtarkiisana insha Allah soo wada bixi doono ma aragto in cudurkan faafa iyo xakameyntiisa qayb weyn uu ka qaadan doono mana aha wax qurxoon diiniyana ma aha ma fiicna in dadka la cabsi geliyo oo adeeg caafimaad uu soo doonan lahaa qofkii laga hor istaago ma fiicna mar walba waxyaalaha negative-ka ee qofka ka dheereyn kara wax noloshiisa badbaadina in la sheego ma aha ilaahay ha laga cabsado ummadda ha loo turo ha loo naxo haddii aadan kaalmeyn karin ha dhibaataynin ha walwalgelinin ha khalkhalgelinin waxa runta ah inay sheegaan dadka cilmiga u saaxiib ah dadka bartay dadka wax ka sheegi kara inay ummadda ka dhageysato waa ku dadaalayna talaalo badan oo kale inaan helno dawladda naftirkeeda ay soo iibsato talaalka kullay talaal la baaray oo waxtarkiisa iyo intuu ka bargareyn kara qofka protectionkiisa la og yahay ayaa wadanka imaan doona waxaan ku wada dardaarmaynaa in aan ka taxadarno waxyaalaha ku tiri kuteenka ee dhibaatada keeni kara in ummadda dhexdeeda lagu faafiyo inaan ummadda la kala cabsi gelinin ee dadka cilmiga u saaxiib leh aqoontaas leh la dhageysto talaalka ayna gaabi iyo wadamadan Covax-ka ah la keenay waxa waaye AstraZeneca kii shalay aan daahfurnay inta kale dhimanna kullay kaas ayay keeni doonaan kuwa kale oo laga keenay China way ka duwan yihiin maadaama bulshada 20% lagu talaalayo 20% bulshada ay talaalayo iyaga yani nagu dhaheen intaasaan idin siin karnaa dabcan inta kale oo aan gaari karno waa inaan raadsanaa meelihii aan ka heli karno China hadda noo deeqday wadamo badan kale waa ka sugaynaa iyo waxaan gadan doonaa waa muhiim nooc ahaadaba talaal sharciyeysan la ansixiyay la hubo waxtarkiisa heerarka uu soo maray baaritaanka uu soo maray
la ansixiyay in lagu talaali karo unbaan iibsan doona ama qaadan doona cidii noo wacyigelinta waa bilaabatay waa socotaa waxaa jira social media dhaqaatiir iyo wasaaradda caafimaadka dadka ka shaqeeya talaalka iyo ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed dhaqaatiirta dibadda joogta ee Soomaaliyeed professionalka ololo weyn ayaa bilowday oo habeen walba la wacyigeliyo oo toos loo soo deeya waana sii badin doona ilaa guri walba uu ka gaaro hadii alla idmo دور ونفسل وحن ربا إن إذن لو ذا جمر كله إن عذركي أدو في ذا كوفيد 19 هدي ويراضي قبل كبنادر معها إن عذرك أودا ماضي وحن كأركينا ميلا بدنا قبل هذا كمده إن عذرك لجسوا شيء جاي إما شاء أدو بدنا لسوا شيء جاي تاسمعني هذا وحوا عذرك وافافه يعني فيرين الكلية نمبرada ay soo saarto wasaaradda caafimaadka waxay baartaa xaaladaha u yimaada isbitaalada maamul goboleedyada meelaha lagu baaro leh iyo magaaladan Muqdisho ee gobolka Banaadir waxaa jira meelo badan oo aan lahayn cudurka waxyaalaha lagu baaro dhibaato weyn ayaa ka imaada taas waxaan isku dayeynaa si kastoo aan gaari karna inaan gaarsiisno baaritaanka meel alaaba meeshii la gaari karo waxaa muhiim ah dadka in ay taxadaraan in afka la xirto in la kala dheeraado in gacmaha iyo nadaafadda guud ahaan lagu dadaalo gacmaha aad la isaga dhaqo in meelaha ciriiriga aan la tegin in la taxadaro in dadka caafimaadkooda uu liito cudurrada qaba ee raaga iyo dadka waayeelada u nugul cudurradan faafa in si gaar ah loo ilaaliyo dhalinyarada waajib zaa'ida saaran in ay ka ilaaliyaan maadaama iyagu ay yihiin kuwa ugu badan ee qaada hadda markii la fiiriyo xogta aan hayno sagal siman raadiyaha iyo telefishinka City Jowhar mahadsanid sagal siman guddiga gurmadka balada xaawo ayaa warbixin hordhac ah waxyaabaha ay qabteen soo bandhigay sida warbixintan uu ku eegayo Maxamuud Cali Cumar Daacad guddiga abaaraha magaalada Balad Xaawo ee gobolka Gadow ayaa ka warbixiyay xaaladda abaareed ee ka taagan deegaanada iyo tuulooyinka ku dhow magaalada Balad Xaawo ee gobolkaasi guddiga oo maalmahanba waday dadaal lagu doonayo in laga hortago xaaladaha abaareed ee ka sii dareysa ayaa ka hadlay halka ay wax marayaan iyo dadka ku dhibaataysan halkaasi sidii lagu caawin lahaa waxaan nahay qayb ka mid ah guddigii gurmadka abaaraha ee degmada Balad Xaawo horeyba sida aan TV-ga qaranka ula wadaagnay warbixinteennii koobaad haddaan ku hormaro lacagta noo soo xarootay oo aan degmada Balad Xaawo ka aruurinay waxay noqotay $13,038 oo Mareykanka ah lacagtaas iyada waxaan ku sameynay biyo dhaamintii aan sameynayna waxay isku noqotay 70 booyadood 70kaas booyadoodna waxaan u kala dirnay dhul kala fogfog oo maaragtay ay ka mid yihiin wadadan maaragtay Ceelwaaq iyo wadada Garbahaarey iyo wadada Luuq intaasaan u qaybinay waxaan geersiinay biyahaas dhul ay ka mid yihiin degmada Garbahaarey degmada Luuq degmada Doolow degmada Balad Xaawo iyo degmada Ceelwaaq intaas dhul ka kooban baan gaarsiinay biyo dhaamintii aan sameynay lacagtii $13,038 ahayd waxaan baaq halkan ooga dirayaa dhammaan ummadda muslimiinta ah meel kasta ay joogaan qaasatan kuwa gobolka Gadow ka soo jeeda jaaliyadaha dhammaan waxaan leeyahay dhulka waxa ka jiro abaar aad u ba'an ilaahay nasrigiisina waa la helay alxamdulillah meel badan baa laga cabay waxaan leenahay marka insha Allah wixii soo gaaray oo gacantanada soo gaarayna way bixeen si wanaagsan ayay ku bixeen sida guddigii hore qasnajiga uu faahfaahiyay marka waxaan baaq halkan kala wadaagayaa oo rabaa inaan iraahdo dadkii wali way ooman yihiin oonkii iyo dhibkii wali uu taagan yahay ilaahay baa naga bixin karo laakiin hadii la isgarab istaago aad baa dadka loo waraabin karaa annaga meelihii hadda aan waraabinay dadka aad bay u dhibanaayeen ilaahay baa dhibka ka qaadi karo laakiin aad bay ugu naxariis ilaahay bay ku heleen xoolahoodii baa cabay ayagii baa cabay waxaan rabnaa marka ilaah subxaanahu wa tacaala inaan u barino dadkii walaalahood oonka la qaybsaday inay ka saaraan ilaahna subxaanahu wa tacaala sabab uga dhigay biyahaas faraha badan oo la geeyey way kala duwanaayeen waana kala meelo kala fogfog ama kala dhib badan oo kala qiimo ah weeyaan oo aad u kala qiimo sareeyay
waxaan marka rabnaa inaan ilaah u barino dadkaas la baxay biyahaas inuu ilaahay jannadiisa ka waraabiyo xawdka nebiga salawaatullahi wasalaamu calayhi inuu ka waraabiyo waxaad la baxdeen annaga intiina soo gaartay waan gaarsiinay walaalihii oomana ayagoo weli u sii baahan ilaah nasrigiisana hadeertaan uu bilowday meelana uu roob ka da'ay meelana weli sidii ay weliba badanka gobolka uu weli sidii oonku uga taagan yahay dad badan waxaa jira dadaallo wada oo iskood isu xilqaamay hay-ado ay ka mid tahay hay-adda araxma muasasada raxma oo hadda ayagu biyodhaamiskii gobolka oo dhan ka bilaabay waxaanan leenahay weli way u baahan tahay gobolku xoolihii baa baaba'ay dadkiibaa qaar dhimanayay dadka muxsiniinta oo walaalaha muslimiinta oo ku jooga iyo ku maqanba oo naftooda dadkaas abaaraysan oo dhibaataysan u hibeeyey shilinkoodii iska qaaday ayaga siiyey waxaan ka codsanaynaa baaq kalaan u diraynaa abaartii weli waa taagan tahay ilaahay fadligiisa inkastoo meelo kore oo alwaaqi gaarkeeda ay nasriga ilaahay hadda ka bilowday dadkaas oon iyo baahiba way haysataa ayagii dunyadoodaba gacanta lagu saadayaa raashinka dadka la siiyaa dunyadana la siinayaa waxaan markaan ka codsanaynaa oo codsi kale in kuu soo jeedinaynaa dadka walaalaha oo muxsiniinta oo shalayna xoolahooda kuwa joogay iyo kuwa maqnaaba la baxay deegaano dhowr ah oo ka tirsan dowlad goboleedyada dalka ayaa waxaa ka taagan xaalad nololeed oo ay wajahayaan dadka xoolo-dhaqatada ee ku sugan deegaanada iyo tuulooyin maamulada dalka gaar ahaan gobolka Gadow. Maxamuud Aacad, raadiyaha telefishinka City, Jowhar. wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa tagay gogosha tacsiida madaxweynihii hore ee dalka sidoo warbixintani ku eegayso Sagal Siman. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa booqday gogosha tacsiida Allah u naxariistay madaxweynihii hore ee Soomaaliya marxuum Cali Mahdi Maxamed waxaana ku wehelinayay xubno kamid ah golaha wasiirada mid kamid ah eheladii marxuumka geeriyooday ayaa goobta ka hadlay maasantahay maantana imaanshahaaga waa kaaga mahad celinayna mar kale isaga Allah u naxariisto yani kulligeen maaragtay ayuu naga dhintay waa idinkaga tacsiinina soo dhawaada dawladana mar kale waa u mahad celinayna adigana si gaar ah kugu mahad celinayna imaanshahaaga wasaare soo dhawaada guddigu sidii oo xogayo u sheegay ilaa maalintii waa taagnaa waxaan rajaynayaa insha Allah maanta inaan soo afjarno haddii Alle idmo si wanaagsan inoogu dhamaatay min airport ilaa maaragtay ilaa maanta aan joogno wax dhibaato ilaahay waa naga hayay si oo wanaagsan tacsiid loo qayb galay looguna duceeyay wax walbana waxay ku socdaan sidii loogu tala galay wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya oo kamid ah guddiga dawladda Soomaaliya u xil saartay aaska ayaa sheegay inuu heer gabagaba ah marayo tacsiida kulli aniga waxa waaye guddigan kamid ahaa oo aas qaran loo saaray si dhawaan aan iskula soconay ugaaska iyo gurigiyo marar badanna meesha ku soo noqonay waana ka mahad celinay markii hore haddana mar labaadan waxaan ka mahad celinaynaa sidii wanaagsaneed oo dawladda loola shaqeeyay xukuumadda loola shaqeeyay aaskaas inuu noqdo aas qaran oo maadaama Cali uu ahaa madaxweynihii hore ummadda Soomaaliyeed uu ka tagay ilaahayna waa noo fududeeyay subxaanahu wa ta'ala ilaah ku mahadsan milkiinidiisii duugidiisii iyo tacsidiisiiba ilaahay waa noo fududeeyay ilaah mahadle mar labaad mar saddexaad waa idin mahad celinaynaa mideeda kalena ilaahay waxaan uga baryaynaa jannadii firdawsa inuu ka waraabiyo nin nabadeed uu ahaa sida hadda taariikhdiisa lagu cusay annaga taa waa soo gaarnay isagana gadaashiisna ilaahay nama fidneeyo nabadii uu ku baaqi jiray in ilaahay noo rumeeyo ma ilaahay subxaanahu wa ta'ala aan ka baryaynaa ra'iisul wasaaraha ayaa la kulmay ehelada Allah u naxariistay madaxweynihii hore ee Cali Mahdi Maxamed isagoo uga tacsiyeeyay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun oo xilli horta muruga ah adeerkay gaar ahaan madaxweynihii hore Cali Mahdi Maxamed Soomaaliya oo dhan eheladiisii qoyskiisii horta aadan uga tacsiyeynaya geerida naxdinta leh ilaahay waxaan uga baryayaa subxaanahu wa ta'ala inuu qabriga u waasiciyo aan ducada u badino hadduu ilaahay raali ka noqdo isna inuu ilaahay naxariistii janno geeyo waxaan rabaa inaan u mahad celiyo duubabka caruurta ehelka qaraabada uu ka baxay adeerkeen madaxweynihii hore
cali mahdi maxamed guddigii soo qabanqaabiyey iyo guddiga hadda hawsha wadana waa si gaar ah ayaan ugu mahadcelinayaa halkaana hadal badan igaagan furnay waxaa nooga furan inaan u duceyno Allah subxaanahu wa tacaala aan uga barino inuu meesha uu joogay meel ka wanaagsan uu geeyo maanta ilaahay ayuuna magan u yahay maanta subxaanahu wa tacaala marka aan faatixada hal mar u marno wabilaahi tawfiiq sagal siman raadiyaha iyo telefishinka City Jowhar mahadsanid sagal siman guddi culimo ah ayaa bilaabay ururin lacag tabarucaad ah oo laga ururinayo dadka warbixintan daacad haynoo sii dheereeyo guddiga badbaadi naftaada oo ka kooban qaybo kala duwan ee ururada bulshada rayidka ayaa kulan ku yeeshtay magaalada caasimadda ee Muqdisho gaar ahaan cusbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee gobolka Banaadir guddigani ayaa bilaabay howlahooda shaqo guddigani ayaa ah kuwa bulshada ka wacyigelinaya xaaladda sii kordhaysa ee xanuunka corona ayaa waxa ay bilaabeen dhaqaale ururin loogu talagalay dadka uu soo ritay cudurka safmarka corona iyo abaarahaba Sheekh Bashir Ahmed Salaad iyo xubno ka mid ah guddiga oo goobta ka hadlay ayaa baaq u diray shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa dibadda ku sugan inay la soo gaaraan deeq dadka walaalahooda dadka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa insha Allah taala inay ka qayb qaataan tabarucaadka ayada ah gudaha iyo dibaddaba dadka jaaliyadka gaar ahaan maraakista islaamiga iyo masaajidda in laga soo qayb qaataan rajaynayna insha Allah taala oo loo dhagan nuglaado baaqeena oo dadka la badbaadiyo u dhimanaya oxygen la'aan marka runtii waajib ay nagu tahay diini ah oo wadani ah in la isku gurmado wax istarno aan u soo jeedinayna bulshada wixii aan istarnaana ay noqdaan wax muuqdo oo miro dhal ah waxaan marka leenahay marka koowaad ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu cudurkaasi cudurro kaleba naga hayo qof kastana wax uu la baxayo oo sadaqaysanayo ay tahay in lagu badbaadinayo naf midda labaad insha Allah taala waxa ayadana la diyaariyay xarun call center ah oo ayadana xarunteeda ay ku taalo isla isbitaalka Banaadir oo ay dadka soo wici karaan habeen iyo maalin insha Allah nambarada xaruntaasina mar dhow ayaa dadka la wadaagi doonaa xaruntaas insha Allah taala xilli kasto inaan garab taaganahay guddigana aan la shaqeyn doono waxaa intaas iga dheer runtii oo aanan horay guddiga ula wadaagin oo aan sugay inta xarunta ay ka furayaan si dhaqdhaqaaqooda iyo tashiilaadka ay u baahan yihiin ay u kabtaan waxaa ogtiin sanadkii hore Allah u naxariiste aabahay macalin Shariif inuu u geeriyooday xaalad la mid ah baahida oxygen-ka wadanka dhacay darteed runtii emotional lama hadli karo laakiin insha Allah waxaan rajaynayaa wadankeena inuu gaaro isku filnaansho warshadaha oxygen-ka dhaliya waxaan rabaa in aabo mar walba anagu na baray anagu wax na soo baray anaga shaqeyna wax walba oo adduunka intaan joogno aan u tari karno ilaahay inuu naxariisto familkana nologu duceeyo $5,000 oo aan ugu deeqeyno guddiga abaabulka badbaadina oo cudurka safmarka iyo abaaraha ay ku saameeyeen gudaha dalka Maxamuud Aacad raadiyaha telefishinka City Jowhar mahadsanid daacad safiirada Djibouti iyo jaamacadda Carabta ayaa ka wada hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka Soomaaliya warbixintan Umar Yuusuf hayno eego magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waxaa kulan miro dhal ah ku yeeshay safiirada jaamacadda Carabta ee Soomaaliya iyo safiirka Djibouti u fadhiya Soomaaliya kulankan ayaa waxa uu ahaa mid ay labada safiir uga hadlayeen xaaladda siyaasadeed ee dalka xilligan ka taagan waxaana safiirka Djibouti u fadhiya Soomaaliya Danjire Aadan Xasan Aadan uu sheegay in jaamacadda Carabta safiirkooda u fadhiya Soomaaliya ay kala hadleen arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin xiriirka ay la leeyihiin Soomaaliya iyo xaaladda siyaasadeed ee xilligan ka jirta gudaha dalkeena hooyo ee Soomaaliya kulanka kadib waxa warbaahinta la hadlay danjiraha safaaradda wadanka Djibouti ee Soomaaliya Danjire Aadan Xasan Aadan waa ilaahay mahadi waxay ahayd booqasho uu noogu yimiday safiir Saalax Al-Junayd safiirka jaamacadda Carabta ee Soomaaliya kulan wuxuu ahaa su'aashaad weydiiseen yani waxa uu noogu yimiday safiir Junayd
dabcan safiir saalax aljunayd wuu ku cusub yahay Soomaaliya waa safiirka cusub ee jaamacadda carabta u soo magacooday Soomaaliya marka wuxuu noogu yimid kulan isbarasho maadaama aan nahay Djibouti dal carbeed oo ka mid ah maaragtaan xubinka ah annaga iyo Soomaaliyaba jaamacadda carabta kana wada shaqeynayno Soomaaliya marka waa dad ay noo dhaxayso wada shaqeyn joogta sida awadeed maanta wuxuu soo booqday safaaradda Djibouti waxaanan ka wada sheekaysanay sidii loo xoojin lahaa kaalinta ay ku leedahay jaamacadda carabta Soomaaliya dabcan jaamacadda carabta oo Soomaaliyana ay xubin ka tahay waxay leedahay kaalin aan la qarin karin oo ah horumarinta dhinaca haday noqoto tacliinta dhaqaalaha iyo arrimaha siyaasadda intaba Djibouti waa dalka kaliya jaamacadda carabta ah oo ciidamo ku deeqay in maaragtaan ay Soomaaliya deganaanshaheega iyo difaaceega ay ka shaqeeyaan waxaan markaa aad maaragtaan farta ugu fiiqnay Soomaaliya in ay maanta uga baahi badan tahay waqtiyadii hore ay isgarab taagaan walaalaheega carbeed maaragtaan dawladaha carbeed Soomaaliya way ka soo baxday maraaxishii ugu xumayd oo maaragtaan la dagaalamayay argagixisada waxa kale oo ay ka soo gudubtay maxaan ku raahdaa khilaafaadkii ugu badnaa oo wadanka maaragtaan halista gelinayay waxa socda dhismihii dawladda marka jaamacadda carabta xil weyn baa wuxuu ka saaran yahay sidaan u sheegnay safiirka oo annaguna aan diyaar u nahay in jaamacadda carabta ay xilligan si firfircoon uga qayb qaadato dhismaha dawladda Soomaaliya intaas ayuu kulanka iyagu ahaa kulan maaragtaan aan rajaynayno inay kulamo kale ku sii xigaan oo majmuucada carbeed ama safaaradaha carabta ee ka furan Soomaaliya dhammaantood xafiiskaas iyo annagu aan ka wada shaqeyno sidii gacmaha la isku qabsan lahaa Soomaaliyana wax laga qaban lahaa mustaqbalkeega Abdiraxmaan Shoodhe Universal TV Muqdisho Umar Guuxraadiyaha iyo TV-ga City Jowhar maxaad ka taqaanaa aroosyada magaalada Jowhar ciyaarta laga ciyaaro Umar Guux ayaa warbixintan inuu soo diyaariyay Sadexooley waa mid ka mid ah ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka Soomaalida waxayna la baahatahay beereyda kabeebeyda iyo buraanburka Aways Khamiis Cabdalla Mabuute oo ahaa fanaan hore ayaa hees ka sameeyay ciyaartan taas oo ku hogo tusaaleysiinaysa in dadka beeraleyda ah ay dheelaan ciyaarta bal aynu dib ugu laabanno sadexooleydeeni dabcan lacago dhar iyo maacuun ayaa lagu kala qaadanayaa inta ay socoto ciyaartan taas oo ah qaaraan dhaqameed xilliyada arooska ay isweydaarsadaan haweenka Soomaaliyeed kuwooda dega dhulbeereedka ku teedsan wabiyada Shabeelle iyo Jubba
jowhar marka la joogo aroosad reer jiinka ah oo aan ciyaartan laga dheelin arooskeeda waa mid aan waxba ka jirin mana yeesho dhaqan iyo ka sheekayn guud waxaana gabdhaha la asaaga ah ay ku liidaan in aanan laga boodin oo aan laga ciyaarin saddexooley habeenkeedii aqalgalka cumar guuxraadiyaha iyo TV-ga City jowhar mahadsanid Cumar Guux galmudug ayaa shaacisay in ay kaalin weyn ka qaadatay sugidda amniga dalka gaar ahaan galgaduud warbixintan waxaa inoo soo jeedinaysa Sagal Siman wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka galmudug Axmed Macalin Fiqi oo ka warbixiyay xaaladda galmudug ayaa tilmaamay inay socdaan howlgallo lagu xaqiijinayo amniga wasiirka oo warbaahinta kula hadlay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ayaa sheegay inuu farqi weyn u dhaxeeyo sida ay galmudug ahayd marka ay imaanayeen madaxda talada maamulkaasi haysta iyo xilligan xaaladda ka jirta galmudug wasiir Fiqi oo si hadlaya ayaa sheegay in amniga ay iska kaashanayaan shacabka iyo ciidamada deegaanadaasi galmudug xilliganna ay meel fiican sii marayaan howlgallada horta waa mahadsantihiin SNTV waa idin mahadcelinayaa runtii fursad weyn bay tahay maanta inaan kulanno oo interviewgan iyo waraysigan aan bixiyo waxaan aaminsanahay SNTV inay shaqooyin badan ay dalka ka qabato ee telefishinka iyo dadka Soomaaliyeed ka dhaxeeyana uu yahay marka waa bogaadinayaa shaqooyinka haysiin marka labaad waxaan galmudug waxa weeye xaaladda ay ku sugnaan jirtay iyo xaaladda hadda ku sugan tahay marka la isku fiiriyo runtii waxay noqonaysaa ilmo yar oo socday oo orday oo kale oo dhulka yaalay oo orday oo kale weeye amnigeeda alxamdulillah horta marka laga reebo deegaamadan koonfurta waa dhulka ugu badan oo 500 oo kiiloomitir oo dhirir ah aad si xor ah ku socon kartid adigoo baabuurkaada waardiye wadan baabuurkaada wadatid wax isbaara wax checkpoint wax dhibaato wax la isweydiinaya ay jirin ma jirto koonfurta Soomaaliya marka laga soo reebo galmudug dhulkan kale oo koonfurta meel 30 kiiloomitir oo isku xiran lagu safri karo ma jirto marka waxaan moodaa shaqadaas inay tahay shaqo iska timid maahan waa shaqo dadka deegaanka iyo maamulku ay wada qabteen oo amniga inuu sidaas noqdo dadka deegaanka difaacay shabaabna ka difaacay dee wixii kale oo dhibaato amni wadana ka difaacay marka waxaan sii xoojinaa anagu hadda amnigaas dadweynaha galmudug ay asaaska u yihiin ayaan sii xoojinay waxaan qaadnay isbaarooyinkii deegaamada yaalay oo dhan oo jidadka yaalay laga bilaabo Matabaan oo dhinaca u sokeeya xuduudda galmudug iyo Hirshabeelle ilaa iyo Gaalkacyo Puntland xuduudda aan kala leenahay waxa weeye baabuurka halka ka soo drive gareeya si toos ah oo san caqabad lahayn buu iska socdaa baabuurta gaadiidka waa marka runtii shaqooyin badan baa laga qabtay dib u heshiisiino beelaha marmar isku dhaca dagaalo soo jireen oo qurun socday oo aan rabno in laga gudbo iyadana waqtiyada dhow marka waxa weeye dib u heshiisiin xoogan ayaa socota hadaad ka warqabtiin maalmahan oo dhan magaalada caasimadda Dhuusamareeb waxaa fadhiya maaragtay beelo walaalo ah oo diriri ayaa ma dhaweetay ka dhaxaysay maleeshiyaad maaragtay baadiyaha ku nool runtii hadda meel fiican bay maraysaa ma jiro hadda meel dagaal uu ka socdo galmudug oo aan ahayn dagaalka al-shabaab lagula jiro kooxaha argagixisadu markay galmudug hana qaaday oo xoogeysatay oo hadda aad arkaysiin dekedeedii dabiiciga ahayd in maraakiibtii doomihii ay adeegsanayaan gaadiidka iyo raashinka iyo shidaalka iyo wax kasta ay ka soo degayaan dadweynihii noloshooda caadiga ay u wateen inkastoo dee COVID-19 kan uu saameyn xoogan ku yeeshay nolosha dadka hadda waxaan marka dagaalka kaliya oo reer galmudug hadda u harsan waxay kula jiraan kooxaha argagixisada laga soo bilaabo mudugta fog ilaa dhulkan galgaduud oo caasimadda eeriyadeeda waxa weeye furin dheer oo 400 kiiloomitir ayaan isku furannahay nimankaas odayaasha oo argagixisada oo kooxahan al-shabaab iyo khawaarijta deegaamadaas khawaarijta loo yaqaana kooxahaasi waxayna soo saareen xoog ballaaran galmudug awal waxay u ahayd
meel ay ku nastaan madaxdooda waayo duqeymaha koonfurtan ka socoto dhan madaxdoodu waxay ahayd meesha ay ku nastaan oo ku aroosaan oo xaasaska geystaan laakiin marka maamul xooggan uu meesha ka dhismay maamulkuna uu rabo inuu deegaamadii dib uga xoreeyo kooxahaas argixisada waxay soo saareen culays xooggan bayna soo saareen culayskaas runtii haddeertaan alxamdulilah waxaa weeye ciidamada galmudug iyo ciidamada qaranka meesha ku sugan oo iskaashanaya waxaa weeye sutiray u qabteen waxaan rajaynaynaa insha allah doorashooyinkan iyo haddii laga baxo iyo haddii lagu jiraba in deegaamo badan oo gacanta al-shabaabka ku jiray muddo 14 sano lasoo dhaafay 15 sano lasoo dhaafay in laga xoreyn doono in deegaamada galmudug bay sanadkan aakhirkiisa ay qorshaysan tahay in galmudug oo dhan shabaab laga xoreeyo aan noqono maamulkii koowaad oo maamulada dalka ah oo deegaamadooda al-shabaab ka xoreeyay taas maahan awoodaan annagu keligeen haysanno waxaa awoodeenna ugu xooggan ay tahay shacabka galmudug oo necab al-shabaab caqiida ahaan u necab u haysta inay yihiin elementis ama canaasir uga soo duulay dibadda oo dadka shabaabka meesha ku sugan 90% reer galmudug maaha gobollo kale ka yimaadeen dadkii bay gumaysanayaan carruurtii yaryaraabay bay maaragtay rabaan xoog inay ku askarayaan gabdhihii bay xoog ku qaadanayaan xoolahoodii bay zaka beena oo aysan ayagu xaq u lahayn inay qaadaan ay uga qaadayaan gumaysigaas dadka reer galmudug oo gudahooda xitaa ku jira hadda waxay diyaar u yihiin inay ka gilgishaan heeryada kooxda al-shabaab iskana qaadaan annaguna hadda ciidamadii oo dhan heegan waxay ugu jiraan insha allahu tacaala inay dadkaas ka xoreeyaan walaalaha ay galmudug u dhashay muddada 15 sano ah nimankaasi xoogga ku haysteen in laga xoreeyo marka dhammaan waxaan rabnaa istiraatiijiyadda guud inay noqoto istiraatiijiyad kooxaha al-shabaab lala dagaalamayo ma dhici karto in ay lacagihii ay ka qaataan ganacsatadii oo xamar ama meelo kale deegaamo ka mid ah Soomaaliya oo dekadii la yiraahdo waxbay ka qaadanayaan oo lacagtii al-shabaab ay helayso oo qaraxyada ay ku sameynayso in la yiraahdo ganacsatadii baa bixinaysa suurtagal maaha marka waxaan rabnaa dagaalka al-shabaab lagula jiro inuu noqdo dagaal guud oo deegaamada Soomaaliya oo dhan iyo maamul goboleedyada dhan ka socda dawladda dhexe ay wado kaliyan yani waxba lama wadi karo al-shabaabku haday noqoto inay lacagta ganacsiga xamar yaala inay lacagtiisa ay dadka ku soo weeraraan waxay noqonaysaa dagaal hal dhinac ka socda marka dagaalku inuu mid guud noqdo ganacsatadana waxaan ku baraarujinaynaa oo aan leenahay waa tukanaynaa wajiga sujuudaasana madow masaajidka kama baxno shanta salaadood aan tukanaa shabaabna lacag baan siinaynaa ay dadka ku qarxiyaan suurtagal ma dilalka shabaab ay geysanayaan dambigooda waxba ka soo gaaraya dadka lacagaha siinaya qaarka ku qanacsan way ku qanacsan yihiin laakiin kuwa dhahay xoog baana la kaga qaaday waxaad ogaatiin lacagtiinii in aad ku naar mudanaysaan lacagtiinii in dadka lagu leynayo marka waxaana kala dirirnay annagu ganacsatadii galmudug deegaamada xortaa joogtay in wax lacaga ay siiyaan kooxaha argixisada qof kasta oo lacag bixiyana wuxuu noola mid yahay al-shabaab wuxuu noola mid yahay argagixiso wixii dhuumaalaysi xataa laguma siin karo waxaa dhici doonta haddeertaan inaan dabagal xoogan ku wadno cidaha dadka ay soo wacwacaan oo marmarka qaarkood lacagaha iyo u tuura kuwaasi noogama duwanaa midka qaraxa isqarxinaya noogama duwana waayo lacagta qaraxaas ku baxaysa ayuu bixinayaa marka si guud waa idin mahad celinayaa insha allahu tacaala meeshaas galmudug la yiraahdo iyo deegaamo badanba waxaa laga wadaa in heeryada kooxahaas argixisada dadka laga qaado in dullinimada awal waxaa weeye intay dadka wacaan bidhiji adiga kuma soconno qabiil hebel baan u soconnaa intay dadka kala qaybiyaan waxaa magaalada jowhar guri loogu dhisay hooyo Soomaaliyeed oo aan muuqaalkeeda hore anaga u baahni warbixintan Cumar Yuusuf hayna soo koobo qol iyo barso waa maamo Soomaaliyeed oo dhawaan baahiyaheeda ay baahisay warbaahinta City taasi oo ahayd in aysan haysanin meel ay kaga gabaado qoraxda iyo dhaxanta dhacaysa walaal Soomaaliyeed oo ku sugan gudaha dalka ayaa durbadiiba ooga soo jawaabay waxaana loo dhisay guri ka kooban qol iyo bersi
hooyadan oo ku sugan kaam lagu magacaabo Tobakal oo ku yaala gudaha magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa u mahad celisay walaalkan Soomaaliyeed oo baahiyaheeda ka soo jawaabay wayna u duceysay وسجن إلهي إلى فعيس إلهي كما رابو فوقيس الله كدغو ودعي سنيهي ودعي سنيهي مغان الله مغان رسول سبحانه الله قرسي أصحابتي سأبكى أداء وطحا وسجن إلهي إلى الله وآي ميز ميز فعيسنا الله كما رابو فوقيس الله كدغو انتيس كجوين عافمات خير الله نورسيه انتين وقرقارتنا الدنيا آخر الله أو قرقارو من الله الله أغلقو شوشك الله كقارن نيد الله وفرو يبرسو بعويني الله يدسي qaar ka mid ah ehelada maamada ayaa iyagana dhankooda uga mahad celiyay walaalkan ka soo jawaabay baahiyaha maamadan laba qodob bacweyne ee qolii daashkiisa noola dhisay walaalka noo soo gurmada khayr Allah siiyo adiga Allah ka qabto ay mahadsan yihiin boqolkiiba boqol walaalaha noo keenay muslimiinta oo saakan soo dul istaaginay maga Allah iyo maga rasuul ay leeyihiin khayr Allah siiyo ay mahadsan yihiin boqolkiiba boqol awlaadiisna baaraha Allah ugu dhigo shaqadana Allah u siyaadiyo alxamdulillaah rabbil caalamiin shukr adag Allah ka qabto mahadsanyihiin الله إيمك رسول أجر حسنات الله أسيء وكقمنا قلنا قل إداش كيسة إنه لدسي أجر يا حسنات الله أسيء ما أمهد علينا مراد كيسنا الله سلمي وأمي الله كبرامي maamo Xabiibo Cadow Xasan oo ah gudoomiyaha kaamka Tobakal ee degmada Jowhar ayaa u mahad celisay walaalkan Soomaaliyeed ee ka soo jawaabay baahiyaha maamadan waxaana ay sheegtay in markii hore daruufo adag ay ku jirtay hase yeeshee hadda wixii ka dambeeya inta dhiman ay qayb ka qaadan doonaan dhamaystirkeeda dadka isku hawliyay inay u soo dhiso duqdan wiilayda ah oo wad iska dayacneeday oo cag lahayn oo indha lahayn oo wiil lahayn oo xoog lahayn oo wax iska dayacneeday maxay ahaayto amba dad ama dhido amba dhadi ama roob u dayacneeday qoladii ka qaado u dhistay qolkan gurigan u dhistay waa uga mahad celiha sidaas oo kale gudoomiyaha ayaa waxa ay fariin u dirtay dhammaan bulshada Soomaaliyeed ganacsatada iyo kuwa kale ee ku sugan gudaha dalka iyo dibadiisa waxaana ay ugu baaqday in ay ka qayb qaataan sidii dadka tabaalaysan oo sidan oo kale ah ay u caabin lahaayeen waxaan sii codsaynaa waliba wixii sidan oo kale oo liita muslimnimo iyo islaamnimo inaan isku garab qabanno islaamnimada ku jirta inaan isku garab qabanno waana mahadsan yihiin agaasimaha guud ee warbaahinta City Maxamed Yaasiin Mahdi Maxmed Deeqalfa oo u kuurgalay sheekada maamadan ayaa dhankiisa uga mahad celiyay walaalkan Soomaaliyeed oo ka soo jawaabay baahiyaha ay qabtay maamadan waxaana dhammaan bulshada Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan ay ka qayb qaataan sidii ay u caawin lahaayeen dadka tabaalaysan ilaahay mahad iskale waxaan maanta inoo soo gabagaboobay gurigii loo dhisayay Maama Faay Cabdulle Cabdi oo ku yaalay kaamka Barakac ee Jowhar walaal muslim ah oo ku nool dalka ayaa soo sadaqaystay oo ugu talagalay Maama Faay Cabdulle in ay ka baxdo buushkii ay ku jirtay oo kuleelka iyo biyaha roobka markuu yimaado ay dhex jiifi jirtay walaalkii muslimka ahaa ayaa ka damqaday fiidiyoo aan ku baahiyay ama aan ku baahinay baraha bulshada ilaahay mahadiis waaye alxamdulillaah maanta ayuu inoo soo gabagaboobay dhismihiisii sidaad arkaysaan waa qol iyo daash oo isku gembisan waxaan leeyahay walaalka muslimka ah ee soo sadaqaystay ee ugu sadaqaystay ama ka naxay Maama Faay Cabdulle asagana ajri xasanaad aan la soo koobi karin ilaahay ka siiyo meesha uu ka soo bixiyeen waxaan leeyahay badar qaba ilaahay ha geliyo cadawgiisana ilaahay ka qabta ayaan leenahay dhammaan waxaan leeyahay muslimiinta meel walba ay joogaan cid walba oo ilaahay wax u dhiibay ha ka faa'iideystaan khayrka maalin maanta ahayn ayuu ku samata bixi doonaa haddii ilaahay yiraaho meel walba joogtid ka faa'iideysa khayrka sadaqada yaraan ma gasho walaalka oo baahan haddii aad taakulayso insha Allah maalin aan maanta ahayn ayaad ku liibaanaysaa qof
xanuunsan haddii aad daaweyso sidoo kale oo aanan haysanin daawada qof murugsan haddii aad ka farxiso farxadaas maalin ayaad adna heli doontaa ay kaa farxin doontaa cumar guuxraadiyaha iyo TV-ga City Jowhar mahadsanid Cumar Yuusuf warkii waad kala socoteen raadiyaha telefishinka City waa geenta warka waxaa soo diyaariyey Cumar Yuusuf soo jeedintu waa aniga Zakariya Xusman Cabdi intaan ku doono warkan warkiisa xiga nabadgelyo